kadib markii xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay ku dhawaaqeen in xilkii madaxweynenimo ay ka qaadeen cabdikariin xuseen guuleed ayuu si jaraa'id oo muqdisho ku qabtay wuxuu ku sheegay in sharci darro ay tahay isla markaana fadhiga baarlamaanka uu xiray guddoonka baarlamaanka wuxuu sheegay in xildhibaanada tilaabadaasi qaadeen ahaayeen xildhibaano yar isla markaana ay shir ku qabteen meel ka baxsan halkii loogu talagalay fadhiyada baarlamaanka galmudug wuxuu sheegay sidoo kale in gudoomiyaha baarlamaanka uu ka maqan yahay isla markaana isagoo xaq u leeyahay in fadhiyada baarlamaanka uu furo madaxweyne guuleed ayaa wuxuu sheegay inuusan aqbalaynin isla markaana aysan waxba ka jirin warka ka soo yeeray xildhibaanada ka tirsan galmudug baarlamaanku wuxuu leeyahay kal fadhiyo rasmi ah oo uu shaqeeyo ayuu leeyahay sidaan hadda kulay ogahay ama dhammaan wada ogtihiin kal fadhiga rasmiga ah ee baarlamaanku uu xirnaa waan xiray gudoomiyaha baarlamaankuna shantii bisha ayuu wuxuu soo saaray statementii oo kal fadhiga 45 casho oo dib ugu dhigayo ayuu soo saaray marka saa daraadeed kal fadhi baarlamaan oo furnaa ma jirin numberka labaad xaruntii baarlamaankana wax shir ah oo ka dhacay haba yaraatee ma jirin midda saddexaadna gudoomiyihii baarlamaanka oo ah ninka mandate-ka u leh baarlamaanka inuu kulamadiisu isugu waco oo isugu yeero gudumadiisina gudoomiyo asagana shirkaas iyo waxaas kama qaybgelin mana shuqulna kuma lahayn sidaa daraadeed waxaan u arkaa arinta hadda cadaada ka dhacday inay tahay wax sharci darro ah wax fowdo ah wax loola leeyahay in galmudug iyo maamulkeeda lagu dumiyo sidoo kale gudoomiyaha galmudug cali gacal casir oo shir jaraa'id muqdisho ku qabtay ayaa wuxuu sheegay inaysan aqbalaynin waxa ay ku dhaqaaqeen xildhibaano ka tirsan galmudug oo ah inay xilka ka qaadeen madaxweynaha galmudug anigoo wadanka joogo gudoomiyihii ah qoraalna ka soo saaray isla markaasna in cid kale ay baarlamaanka furto sharci ma ah waxa ka soo baxay shirarkii la sameeyay waxa ka soo baxay oo go'aan ahna gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkii waa is ag fadhinaa ma ogolaan karno sharciga wuxuu yahay baarlamaanka markii la furayo in gudoomiyaha furo madaxweynahana oo goobjoog ahado cabdiraxiin cabdullaahi honkabel TV magaalada muqdisho